Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu. Kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhowaada muuqaal cusub. Maanta waxaan qaadanaynaa daawooyinka loo isticmaalo suuxinta ama haddaad u taqaano anesthesia drug ama anesthetic drug. Kow waxaa ka mid ah daawada inta badan loo isticmaalo suuxinta oo la yiraahdo ketamine hydrochloride. Waa daawada inta badan ee Soomaalida dhaqaatiirta ama ajaanibta ay u isticmaalaan qofka markii qalliin ay ku sameynayaan ama qalliin fudud loo sameynayo in la isticmaalo ketamine. Waa daawo aad u fiican, maasha Allah. Waa daawadan waa daawo aad waxtar u leh oo inta badan badbaadisa bini'aadanka Ilaahay ka soko, maasha Allah. Waxaa kaloo jirto morphine daawada la dhahayo. Waa daawo ayadana sidoo kale oo aan ka yareysan ketaminka, balse ahaan ketaminka ayaa kasii muhiimsan oo zaid loo isticmaalaa. Waa daawada labaad ee suuxinta anesthetic drug eh. Saddex waxaa kaloo jirto droperidol daawada la dhahayo. Waa ayadana daawo aad u muhiimsan, maasha Allah, laakiin inta badan lama isticmaalo, balse ahaan sometimes ayaa la isticmaalaa, ma badno. Waa daawo ayadana ka mid ah daawooyinka suuxinta ee loo isticmaalo anesthetic drug waxyaabaha fudud. Daawada afraad methacetol waa daawo ayadana aad muhiim u ah, maasha Allah daawooyinka loo isticmaalo suuxinta ayay ka mid tahay, waana daawooyinka inta badan ugu muhiimsan ee afartan daawo ay ka mid tahay, qayb weynna ay ka qaadataa. Balse ahaan labada daawo ugu muhiimsan ee Soomaalida loo isticmaalo ama qalliin fudud lagu galo ama qalliin culus lagu galo, waa daawooyinka ugu fiican oo loo isticmaalo suuxinta inta qalliinka lagu guda jiro. Waxaa waaye ketamine iyo morphine. Labadaas daawo ayaa ugu muhiimsan inta badan hadda ayaamahan zaidka loo isticmaalo isbitaalaadka. Halkan ayaa cashirkeena kusoo koobaynaa. Wabilaahi towfiiq. Is aragti dambe oo xiiso leh. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu.